الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داودياشا قيمها إيقاياها له نقل السعودة برنامجك أما قيبت فيسبوك بنادريغا دوت نت بنادري دوت ار جي دمان شبكتها الصومالوين كوكالا فيرسن عالم كودن gudaha iyo dibaddaba insha Allah ta'ala sida aan ku balansaneen barnaamijkan waa barnaamij gaar ah oo aan rabno inaan u soo bandhigno shacab weynaha Soomaaliyeed ee meel walba caalamka ka jooga arin muhiim ah oo xasaasi ah oo runtii aan rabno inaan insha Allah ta'ala bal doodaas aad nagala qayb gashaan oo insha Allah ta'ala aad share gareysaan oo barnaamijkaasna aad insha Allah ta'ala wax weyn aad ka faa'iido doontaan sida aad la wada socotaan dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba joogaan waxa toddobaadyo ka hor soo galay Dr. Fuad Amir Tarmum oo ah dhakhtar runtii ku nool magaalada dalka Talyaaniga ka cabanaya dhibaatooyin ka haysta milkiyad ayaga family ahaan ay u haystaan kule dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho anagoo ku sii dheeraanaynin marka insha Allah ta'ala walaalaha qaaliga ah waxaan jecelnahay inay barnaamijkan ay qayb ka noqdaan oo insha Allah ta'ala ay share gareeyaan oo runtii afkaar iyo fikrado iyo su'aalna diyaar ayaan u nahay inaan su'aalahaas iyo wixii kale afkaarna aan ka qaadano su'aalaha kulay badanaa waxa laga yaabaa in doctorka aad weydiisaan oo wixii idinka maqan oo aad isleedihiin ama idinka haqabtira asaga ayaa insha Allah ta'ala ka jawaabi doona inta ka horeyso annaga oo ah bahda warbaahinta banaadiriga waxaan isku dayeynaa in su'aalo oo dhowr ah inaan doctorka aan weydiino si dadweynaha Soomaaliyeed ay ugu qancaan in xaaladda halka ay marayso iyo meesha ka soo bilaabatay taariikhda iyo taariikh nololeedka familka dhammaan oo dhan familka siday u wada dhan yihiin iyo siday guriga ay insha Allah ta'ala loogu haysto iyo taariikhii la soo maray marka insha Allah ta'ala marka hore adoo soo koobaya ku soo dhawow waxaan iloobay barnaamijka qayb ka ah saaxiibkayga qaaliga mar walba barnaamijka ila falanqeeya oo ila wada Cabduqaadir Zain marka insha Allah ta'ala waxaan ku soo dhaweynaa marka hore saaxiibkayga Cabduqaadir Zain si ugu soo dhaweeyo Dr. Fuad asagana khadka ku jiro oo daawadayaasha ay daawanayaan marka insha Allah ta'ala Cabduqaadir bal ku soo dhawow adiga mahadsanid Cusmaan adiga iyo Dr. Fuad Amir Tarmum waa idin salaamay sidoo kale waxaan salaamaa dhammaan daawadayaasha sida tooska ah inooga daawanayo barteeni Facebooka dhammaantiin waxaan idin leenahay marka hore soo dhawaada barnaamijkan waa muhiim waxaan idinka codsanaynaa in aad la wadaagtaan dhammaan gruubyada Soomaali weyn oo dhan waa barnaamij runtii aan ogol leenahay ujeedadeenna ay tahay in aan soo bayaamino cadeyno xaqiiqada jirta Dr. Fuad Amir Tarmum maalmihii la soo dhaafay wuxuu bartaa Facebooka uu soo dhigay dhul ama guri laga haysto gurigaas oo runtii aad iyo aad hadalhaynta Facebooka u noqotay marka waxaan oo suurta gashay inaan xiriir la sameeyno doctorka isagoo ku sugan wadanka Talyaaniga marka waxay Soomaali tiraahdaa joogo looma adeego marka hore waxaan rabnaa doctorka inuu warbixin kooban siiyo waa kuma Dr. Amir Tarmum تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاميرا هذا جوج وحير هلا دكتور كاميرا دقائق وصا كاميرا فديسي بسم الله الرحمن الرحيم ورت هذا ما سنتين أبو نور يوزين برنامج كاسو بسن كاميرا هذا جوج دكتور ممكن جرتها خدك وكجران ها انا من دقائق اوكي ولو اركا ان شاء الله عدك اي wax walba waa okay kaamirada okay waaye bes kaamirada xogaa dhaqaaq qoso inaad jeclaan lahayn
kaamiradaad aaday u dhaqdhaqaaqaysaa kulay ani saan arkaayo hadda okay kaamirada ditore wado insha allah marka dadka kale oo dhageysanaya oo noo jeedaan waxaa leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah ditore sida aan la wada socon waxaan barta baraha bulshada Soomaalida waxaa qabsaday muuqaal aad soo duubtay oo ahaa warbixin aad ka warbixinaysay taariikh badan oo guri idinka aad leedihiin oo magaalada Muqdisho ku yaalo weliba u dhow dhinaca iyo madaxtooyada ilaa Villa Soomaaliya marka insha Allah taala intaan gudaha barnaamijkan u sii gelin bal taariikh nololeedkaaga meesha ku dhalatay familka taariikhda gurigaas ma yani waqtiga idinka aad gurigaas lahaateen bal insha Allah taala si noogu noqoto barnaamijka habsami u socdo barnaamijka marka waxaan rabnaa in aad soo koobaya oo aadan taariikhda oo kali ah ku ekaatid gurigaas waqtiga idinka oo aad yani mulkidiis aad laheedeen iyo taariikh nololeedkaaga iyo familka inta aad ka koobneedeen bismillahi rahmaani rahiim aniga magacayga waxa waaye fuaad caamir tarmuum aabahayga asalkiisu waa reer Kismaayo waa carab reer Kismaayo waa lagu maqlaa wado iska wado aniga waxaan ku dhashtay xamar waxaa deganaan bilowga xamar weyne dhinaca afridoodka kadib 65 waxaan u guurnay sayid agtiisa isla markiina aabahay wuxuu guri ka dhisay Villa Soomaaliya agtiisa gurigan horta inta guriga galan arintiisa ana iska hadlaya aan dhakhtar ahay waxaan ku soo bartay dalka Talyaaniga waxaan ku qaatay Talyaaniga laba takhasus mid internal medicine midna gastroenterology kiiba waxa waaye 4 sano iyo 4 sano markaan medicine ka baxay waxaan aaday Soomaaliya shaqeynaa isbitaal Madiina waayo waxaan ahaa sarkaal oo booliis kadibna marka arinta xumaatay shaqada Soomaaliya qaacda dhacday Italian ku soo noqday xaggan joogay marka waa shaqadan ka bilaabay xagga alxamdulillah ilaahay gacan fiican u siiyay waxaan noqday the first black consultant of Italy nin madow ka imaaday South Africa alxamdulillah jagada soo gaaray haddana jagadeeda waxa jago oo Talyaaniga ugu weyn la gaaray oo ah primario waxa director ما شاء الله marka inta deganahay waxaan qabaa xaas 5 ilmood 4 wiil hal gabar mid kale diinteena waa ku dhagsan yahay alxamdulillah waxa waa nin muslim oo khaalis ah alxamdulillah aniga ilmahayga iyo xaaska iyo gabadha kulli waxay jaaban yihiin waa wiilashayda waxa subaxdii kacayaan fajr masaajid aadayaan ما شاء الله marka waxa waaye arintan oo familygayna waxa waaye Ingiriis waxa ku nool laba gabdho iyo hal wiil ku nool gabadha kalena waxay joogtaa way ka soo guurtay Ingiriis waxay joogtaa maxal lahay khaliijka hooyna Allah naxariisto hooy waxay dhimatay sanadkan Janaayo odagan wuxuu dhintay adiga 14 sano ka hor Allah naxariisto tan waa historigayga هذا جوجل قشيد أو قراعد فؤاد عامر تروم وأهلسا ما شاء الله عبد القادر محا دكتور ودين لهاد ما دام وربحين كوبن ونسي waxaad sheegtay markii hore inaad deganeedeen afridoodka aabahaagii uu guri ku dhistay degmadaas wardhigley agagaarka madaxtooyada sanadkii aabahaagii gurigaas uu dhistay ma xasuusataa لحنا لبدي kun iyo 962 marka gurigaas intee la eg ayaa degneedeen markii laga soo bilaabo 62 ilaa qaxi ma degneedeen may gurigaas wuxuu ahaa guri oo ku yaalo VIP position waxa deganaayeen kali gaalole ha يا دقناي دكتور كل واحد دقنايان دبلوماتيك يو قالوا اللي دقنايان اوكي
wuxuu ku yaalaa tilmaantiis waa sahal marka soo qaadasid laamiga ka imaanay Theatre National marka socod dadka xamar yaqaano marka kor u socotid waxaa dariiqaas wuxuu soo marayaa meesha safaarada Jarmalka ay jirtay oo sii soconaya wareeg yara ku jira wareega bidixda waxa waaye albaabka laga soo galayo Villa Soomaaliya kadaal Villa Soomaaliya صح هذا دريت وبحث وحاسي عايز سكول 15 مية عايز ايوه 15 مية هذا waxaa loo deganaa dhinaca wardhigley هذيك كلام بديك كلي حنيسا وحادي بوندري bonder exactly اسمعوا marka bondere kala batid isla markiiba biligta waxa ka qabanaysa guriyay dignaa jireen Allah naxariiso agoonta reer Cabdirashiid halii jirba biligta Allah yarxamo anaga waxaan deganaa dhinac bidixda barta ka soo horjeedkiis laamiga saarana guri waxa waa dhul weyn waa 30 per 35 aad weyn oo villa weyn ka taagan oo villa aad weyn oo VIP la jardin weyn qabto waxa waaye waxa deganaan kaliya in safiir iyo diplomatic iyo dadka la deganaa cadaan jaro hawligiis وفانت كاجا درنا ما دول بنشوف بحسي ودول دمانيالة بدك نركو حكلا بحامد دولة ديبتي إمد أو مد بنشوف دي إمد دولة ديبتي قاسان دكريت الجوسو ساراي ولو قرأ وحلا هاي بوليتينو ناسيونال فانت بوليتينو ناسيونال وحواي وأمر كدولة السعودية بيسو وأريما بدل كهل ليسو أكو قرن أزو أفتانياني حتى مر ما بيجري كره حتى markii wadanka laga soo qaxay oo aad soo qaxdeen gurigaas yani dad maad oo soo tagteen dad ma idin hay yani yaad ku ogeedeen yani masawaalis ka soo baxay horta gurigaas zona wuxuu ku yaalaa madaxtooyada zona dagaal ah sax lama dhawaan karin faanti dhinacan waxaa joogay madaxweyne hore askarta dhinaca kale waxaa joogeen qolooyinka kale oo dagaalamay kadibna watii dagaalkii sokeeye oo civil war-ka marka zone waxay zone oo aad waxay leedahay dhib badan soo gali karin sida aad ka dhawaajisay gurigaas anaga waxaan ka dhageysanay fariintaadii Facebooka mas'uul sare oo dawladda ka tirsanaa wasiir soo noqday xildhibaan haddana ahaa musharax madaxweyne maamul goboleedka Jubba mas'uulkaas waa Cabdirashiid Xidig soo saas ma sax waay marka Cabdirashiid waxaad sheegtay in dhowr xiriir aad la samaysay oo adiga xitaa aad dalka aad tagtay meelo badan aad marmartay arintii wax xal ah kama imaanin marka dawladda ama maxkamadda hadda wadanka dawladda ka jirta xiriir ma la samaysay dawladda gobolka Banaadir iyo maxkamadda maxaa dhacay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allah u naxariistay Yariiso dad badan ayuu guryahooda u soo celiyay marka xiriir ma la samaysay gobolka Banaadir iyo maxkamadda wallahi zeyno anaga meel aan soo marin ma laha waxaan ka bilowga inaan ninkan u tagno دكتور بروفيسور عثمان دفلة أو حلوان أو لا يغانو أيوة ولكن الصومالي يمت هو ذي جورو جاي نكان وصوف دي سيجوري هاي السلام عليكم وحول هاي نكان متقانا ما يجري نكان وحال لها محامي عامل ترموم ذاك جوري لاوي هاي ميجدان سيفي عن كذا سفيعنا كوجيدا وقاركينا وحير هاي وحودانيو أنا جوريان وليسي إبرة هاد ميشا أنا وابا أسنا جوريان أنا ودا يعتري نيك وحون نقول سربرايز واقع عزبات وحيري أنا جوريان كذا ليدهين أنا قرش أجيب بحدي قرش كاس محل هاي علي سعود guddiga waa la sii markuu leeyahay cidda
siin karta guri yaa waaye as leedahay ويدين يكوسي وحود الشيخ شريف أسيوي madaxweyne kumeel gaarka sheekh shariif sheekh axmed aisiiyu runtii aad u yaab badan وخرافات غرفة حكم جروحات نكاس كورو دقنا نكاس adigoo raal ah ditore cabdiqaadir zayn adigoo raali ah waxaan rabnaa bulshada inay information ama xogogaal inay u noqdaan waxaan rabnaa xildhibaan hadda waa xildhibaan asaga ma xildhibaan hore hadda waa xildhibaan xidig musharax oo Jubbaland uu noqday oo hadda madaxweynenimo ayuu sheegtay oo yani isqabsiga Jubbaland ayuu qayb ka yahay kala qaybsanaanta marka waxaan rabnaa si gurigan iyo dadka daawanaya iyo dadweynaha Soomaaliyeed say aan ugu xaqabtirno information ama warbixin oo dhameystiran sida u helaan dadka qaarkood waa confusion ku noqonayaan waa waxyaabo badan isaga kala qaldan waxaan rabay marka ditore inaan ku weydiiyo sanadkee ayuu xildhibaan xidig oo gurigaas uu la wareegay gurigaas goorme uu la wareegay oo asaga yani inuu degan yahay aad ogaateen kadibna wixii dhacay by step adigoo oo kadib aan noo sheegi doontid laakiin gurigan wuxuu tagay ani confirm isii cali maxamed geedi wuxuu yiri ani markaa prime minister ah oo madaxweyne ahaa Abdullahi Yusuf Alaano Xariis gurigaas la wareegay ayuu degay goorme bilaabatay marka in aad idinka aad runtii aad dabagashaan oo gurigii aad yani usoo baahataan oo gurigii ninkii aad tirahdaan xildhibaanka ama ninka gurigaas degan oo aad tirahdaan gurigeena u baahannahay sanadkee bilowdeen goorme idinku soo dhacday annaga waxaan tagnay xagga adiga waxaan tagnay taqriiban hadda waxaa la joogaa 9 sano inta ninkan oo la xiriirino ما شاء الله هاي 9 sano sagaal sano maxaa aad kala kulanteen meelaha aad la xiriirteen yani habka aad kula xiriirteen bal waxaan rabnaa faahfaahin dheeraad ah inaan siisid adigoo ka bilaabayo waqtiga xiriirka uu bilowday ilaa iyo heerka hadda uu taagan yahay guriga bal inaa oo warbixin kaamil ah dadka daawanaya ay si ayagana ay information ama warbixinta ay si fiican ay ula socdaan baabuur haddaan ku dhaho sheekadan bilaaba mobile caawina dhamaanaysa aad iyo aad adoo soo koobay هذا كامل عامل ومانسة هاي نو سو كوب انت مهمك ومرك على كل حال انا شن وحنا هي او ابي هودي لنا وشن هل قبل مويه افرتك للصومالي اريتها لو تغين ايوه تغين انت سله ها صح نكان متقانا ملايقه marka adiga aad qabatid maqaarkiisa Soomahan malaga sibix ma ka fakanayo ha Soomahan waxa dhaqaaqay oo marka qabatay ka baxsanaya malaga ha ninkan saas way adiga markii aad la kulantay oo ugu geeyay sida sheegtay Dr. Dufle ma aniga Maxamed Amir walaalkii way ha markii aad u tagteen oo la kulanteen wuxuu sida sheegtay wuxuu dhahay in kharash gurigan ka galay marka maadaama uu kharash ka galay kharashkaas intuu deganayna ma kala xisaabtanteen gurigiina intuu deganay aniga waxaan ku niri lacagisi hadal ma ahan aniga adi lacag ku raacanayna bash صح صح هذه waxaan inta sana deganayd aniga inta imaan aw lacagtaas jark doctore waxa igu maqaalo ah oo aan banaanka ka maqlay gurigaas inay lahaayeen dad family oo Talyaani ah dad Talyaani inay gurigaas lahaayeen ayaa aniga ahaan
banaanka ka maqlay waa laga yaabaa dad kale oo daawanaya caawa barnaamijkan in ayaga laftirkooda sidaas oo kale inay banaanka ka maqleen bal arrintaas uu sheegayo qofkaas oo guriga degan ma ictiraafsan yahay oo ma idin og yahay inuu guriga idinka aan leediin mise wuxuu ictiraafsan yahay in gurigaas cid talyaani ay lahaan jirtay asaga shakhsi ahaantiisa والله أنا بقول واحد مغلى لكن عاوي يكون كان مغلى أو قف كمغلى ليه يعني waxaan qofka soo alifi maqaan caawi ku aan maqlay waxaas wiliga ma maqalin intaas doonaynin adiga caawi ku ka maqlay waxaas asaga marka ana ujeedada doctor waxa waa inaad fahantid asaga marka la xiriireyseen oo sida aan klibyada hore aan oo ada soo duubtay aan fiirsaday oo umada dhan ay wada daawadeen waxa ku sheegtay in dhowr jeer aad wada hadasheen dhowr jeer aad kulanteen dhowr jeer oo familka dad ka mid ah ay la xiriireen oo mas'uuliyiin ay ku jiraan shakhsiyan asagana uu ku jiro marka asaga ma og yahay marka guriga ma ictiraafsan yahay inuu guriga asaga uu yani idinka inaan leedin ma ictiraafsan yahay horta pointiga ugu weyn waa kaas horta pointiga ugu weyn waxa waa ninkan waa ogsoon yahay inuu guriga asaga lahayn ko xamar dooda jirto waxa waa barka guriga laga murmaayo Soomaaliya qof waxa jira dokumenti la soo baxay kii kale dokumenti la keenay oo dacwo ku jirto maxkamada la aaday waxaasi aad ninkan waaba ictiraa horta murur male oo ogsoon yahay asaga meesha uu ku jirin inuu wax la leeyahay asaga boqolkiiba laakiin taas laftirkeeda adigoo raali ah hadduu uu ictiraafsan yahay inuusan guriga asaga lahayn laakiin doodiisa ma ka mid tahay idinka guriga maba leediin oo dood oo noocaas oo kale midin dhex marayaan ka wadaa ninkan nin mooryaan waa aqoon mooryaan ma taqaanaa nin damiir leh male ma qof la hadal dad badan waxa jira guriyada marka dadka u maadeen oo ka baxayaan ninkan qof ma ahan bini aadan oo seeri ma ahan waa mooryaan waa ciyaal suuq ahadi ma qabo balla la sina oo yar loo ballamina qabiila isku imaana shiiqyaal imaana waa goyna waa baxa waa safra intaas xulee dadkan ha ka baxaan wadankaas oo leeyahay ha ku noqdaan wadankooda Yurub ku noqdaan yani waqti dhumis waa malay babaxsanay سؤاشا gurigan waxa lagu soo qoray bulletin official 60 labadii aqoon maxsawaya salla عليه bulletin official kalaya bulletin maxsawaya سؤال oo isweydiin mudan wax waaye waxaad carabawday ra'iisul wasaari hore geedi oo mas'uul sare ah dufle xildhibaan waaye iyo rag kale ragaas maadaama ay yihiin rag oo yani miisaan culus ku leh bulshada gobolka banaadir macnaha gacan ma ka geysteen yani ma idin garab istaageen oo arrintiina ma ka hadleen sano hore ana ugu dambeeyay sano hore ana tagay waxaan joogay taqriiban bil intaas shiraa la suubay intaas ban la suubay intaas odayaal isku keenay cali maxamed geed ku jiro cusmaan dufle xildhibaanayaal dhan meeqaan soo bartay anigoo ka maqan 28 sano ninkan nin oo waxa waay oo balan lahayn oo baxsanaay oo gooynaay oo koosada mataqaanaa waa probably waa balay fakanaay oo kale qof sir ku ag fadhiisto intaas qabtay ana arkay aan qabtay warniyo adiga maya aniga xaqina ka kala marabi ani sano hore xijkan aaday haddaad guriga aad leedahay ana ma ka qaadan na fadhiisi dokumenti gacanta ku ay fadhiiso maya hadhow imaana fak buu goynaya وعررايا وقرافات ما يعني لكن كن لعقتي لباتنا الاسكو او بلاوغ شكتي كدب بحاول تجان دكتور افرح وها بنكي او هي سمح الله او ديفولف بانك او سوماليا iyo waxa uu tagan ganga kii Soomaaliland oo haysan jiray hadirtan hotelka le oo hotelka Binoculka oo ku yaalo barfiyad ah meesha aan jiray hotel cusub la furay gorma ugu dambeysay xamar intii Soomaaliya ay burbursaneed Soomaaliya markii aniga 2015 ay ugu dambeysay labaad qof u tagan waa la hadleen odayaal waa garatay oo aniga abtaan ugu aadisan ولا هذا اللي وكذا مركز ما يسوي عن فؤاد نينكي وحوق قاري صدر الشام كوراليسي وبحا والله بالله أنا بين شيء
marka waxay abtiyo iska sii soo shantii isku iska sii ninka waa iska baxaya arrintaas maxkamadda ma gaarsiiseen dacwadan maadaama documents haysatiin wixii uu cad yahay markhaatiyaal aad haysatiin maxkamadda ma geyseen حلو جيم أخوي حلو جيم ولا جوع عتام كمذا ودي ذي ما ناوي ما ينت ودي ذا بربي ولا جوع كالي ما ناوي misleedahay marka Soomaaliya awood oo qarsoona jiro oo macnaha yani ku bees garaysan qabiil xoog leh قصب ويعدت تاس هذيك الملء مين كلمة مين كاسله وح كلمان macnaha Soomaali waxay dhahaan looma ooye looma aare dad waxa jiro wax walba ku dhaco cid u oonayso cid u argudayso ma leh marka arinta saas ayay u egtahay markaan fiirinay adiga kasta martay cadeemo kasta gudbisay dadka awoodda leh oo la yaqaano oo saaxada ka muuqdo ma filaayo in guryahoodii oo sidaan oo kale isaga haysanaayo oo sharci daro laakiin muuqaalkan hadda waxaan aan ka hadlayno runtii markii la fiiriyo bulsho badanna waana daawanaysaa yacni dowladnimada ayay dhaawacaysaa Soomaali waxaa la leeyahay dowladaa ka jirtaa Soomaali waxaa la leeyahay nidaamkii kala dambeyntii la soo celinayaa dadkii oo sharci dejinta waa baarlamaanka waxaa la dhahaa sharci dejinta dadkii baarlamaanka ku jireen oo sharciga iyo nidaamka iyo dastuurka lagaga dayay lahaa haddii ayaga ay ku jiraan guryo bililiqo waa arrin runtii nasiib ah cabdiqaadir saaxiib cabdiqaadir Zayn adigoo mahadsan runtii iyo doctorkana waa u mahadcelinaa waxaan jeclaan lahaa cabdiqaadir maadaama dhinaca farsamada adiga aad noo qaabilsan tahay in hadday suuragal ku tahay in telefoon number aad ku soo qortid si walaalo qaali ah oo barnaamijka daawanaya ay ayagana fikradooda ay rabaan ama doctorka inay su'aal ay weydiiyaan ay dhici karto anaga aan ilowsanahay ayaga ay weydiiyaan yahay waa lambarka UK aad ku soo gali kartaan WhatsApp-ka toos u soo wici kartaan codkiinana waa la baahinaa ninkii su'aal qabo walaalkan waa dhibane Soomaaliyeed annagana barnaamijkan ulujeedadeena ma aha qaab qabiil ulujeedadeena ma aha yani hebel ku xume hebel ku taageer laakiin waxaa noo muuqdo dhibane Soomaaliyeed waxaa noo muuqdo nin dulman waxaa noo muuqdo nin xoolihiisa hantidiisa hanti maguuraana la dhahaa hanti maguurto oo si sharci daro lagu haysto qofka haysta yaa waay marka qof caadi maaha waa dadkii sheeganaya inay dowladda ka tirsan yihiin waa dadkii sheeganaya cadaaladda iyo dowlad wanaagga xidig shalay wuxuu isku soo sharaxay inuu madaxweyne ka noqdo maamul goboleedka Jubbaland marka waa ayaan daro waa arrin aad u foolxun marka waxay naga tahay hiilo Soomaalinimo dadka inay fahmaana loo baahan yahay Soomaaliya nahay dad muslimiin aan nahay walaalka dhibban ee aan u jeedno in laga gardaran yahay xoolihiisa dulmi lagu haysto in aan ka hadalno waa waajib sharci ah marka walaalaha waxaan u sheegaynaa qadka waxay ku soo gali karaan lambarka UK waa furaha 44778699255 lambarka shaashadu uu ku qoran yahay fadlan si toos u soo garaaca wixii su'aalaad ah wixii fikir iyo tala ah maxaa dhacay arrinta noocan ah anaga waxaan ka maqalnay Facebooka doctorka shakhsi ahaan qofaan u naqaana ma aha laakiin waxaan isku daynay Soomaalinimo inaan doctorka raadino markii aan dhageysanay dhibkiisi xanuunkiisi in guri laga haysto Soomaali ay tagaan meel walba ay mareen ilaa ay hadda arinta xal ma leh shaki badan imaanayo waxa weeye wadankan waxa la dhahay
4.5 dad waxaa la dhahay waxaad tihiin nus marka dadka nuska ah oo aan hubaysnayn oo aan waddanka awood ku lahayn macnaha waxa waaye waa la iska dul maraa si la rabaa laga yeelaa hantidooda aaway maxkamaddii la sheegayay aaway madaxweyne farmaajo oo aan ku tuhmaynay cadaalad iyo sinaan aaway gobolkii banaadir oo xataa ninkii ugu dambeeyey daraad la magacaabay wuxuu yidhi guri ma dhici doonto in si sharci daro lagu deganaado guri ma dhici doonto in xoog lagu haysto intaasoo dhan ayadoo ay jirto waxaa maanta aan arkaynaa dictoor soomaaliyeed oo qarankii wax u soo bartay qarankii u soo shaqeeyey xaq dalka ku leh oo maanta hantidiisii la haysto guriga wuxuu ku yaalaa meel aan ka dheerayn xarunta looga arrimiyo dalka Soomaaliya waa madaxtooyada waa arrin runtii urku taala leh waa arrin xanuun badan Soomaali intana daawanayso waxaan ka codsanaynaa barnaamijkan inaad sheer dhahdaan wax badan oo xumaan waad sheer garaysaan wax badan oo qabyaalad waad sheer garaysaan wax badan oo been iyo kuturukutaan waad sheer garaysaan caaw waxaan idinka rabnaa walaalkeeni Fuaad Dictor Fuaad Caamir Tarmuum inaad garab istaagtaan aad u mahadsantahay Cabdiqaadir Zain aad u mahadsantahay haddii aan su'aaleen xogaa aan ku soo noqono Dictore يعني sida aan ognahay waqtiyada ugu dambeeyay dad badan oo guriga laga haystay magaalada Muqdisho qaarkood dadka haysta xataa ay ahaayeen dad saraakiil oo ciidamo ka tirsan inta guriga inay diideen inay ka baxaan ayaa qaarkood hadda xabsi ku jiro oo la xukumay oo dadkiina guryahoodii loo soo celiyay oo guriga milkiyadii oo rasmiga lahaa u leh oo lagu wareejiyay marka يعني maxaa is leedahay xidig in oo yani ilaa iyo qof inta madax ah sheegtay inta mas'uul ah sheegtay inta oday inta wax garad ah oo Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho joogto oo arintaas ay wax ka qaban waayaan oo hal qof uu yahay oo yani intaas oo mas'uuliin ay isugu tageen yani sidee is leedahay oo suurgal weys in ninkaas guri uu wareejin waayo والله يعني بابا نور وحان وحواي او ياب لخوي والله ياب واي aniga meelaan u soo marin male jawaari markuu ahaa barlamaanka haystay jawaari aabahay yaqaanay reerka yaqaano waas aragnay Roma ugu tagay wafdaada socda arinta u sheegay wuxuu yiri ma anfacayso qofkii arinta ma wuxuu leeyahay impossible ma anfacay waxan arji qor hadda arji si ana ka saaraya male انت وحمله دوقي هوري او مغال او ahaan jiray aan runaanti duqa magaalada hore oo dhintalaan xariisto aniga wali uma tageen way arinta markaas jaa waxay gaartay oo sare oo la tagay xataa madaxweynaha oo farmaajo ودكي كلام تجن أنا ولا شو تكتي ثابت ولا شو تكتي أرجع غرتي إنجليزي كتمد وقابلي وحين هذه أرين تانا جرتا أنا هبل هاي ساس هاي ما حد دوكمنت قبتاوي دوكمنتوي كواكن بس كون جودي ودري أو فرسمه بحجري أنا وصوّع أنا ستمان كده أسبوع كده ولا صوّعي وحتى بدري دوكمنت كاد وأرين الصحوي كورياس أبين على الصحوي مركاني يور سوق أرين تانا قلنا وحوال إنه محل هنيك لو وعي سور هذه ودي مركلين ويمال وكديده سك ملك وجوز انجينير يريسو إلى ونحرسته وأسجن كدم بي أو تابت بدلي أرنت أسجن ما وحمك أوجا أسجن مجارسين أنا أقول أنت تابت توصل ما حريرين واجن مركان تجي أسوي جوجي ماشي وحتى إلى يريسو توصل ما حريرين واي مركز أنا تحمر تجي أرنت حصلها وحلول بين حل أو ده سناتوري دبوتاتي شرير إيو جوجل إيو قبيل إيو شغال بقول واحد اسمه واقعي صح ما هو الباقي له رونا كل شيء أنا عارف أنا قبيل كهذا المجي عليه
laakiin kuwa aniga abgaal dhalay abgaalka waa la soo kacashay aabbe darooda dhalay daroodka waa la soo kacashay deputateyaasha oo gobol cadaan waa la soo kacashay dad isna qaano macruuf kulli wala keenay qof walbo ninkan wuxuu yiri daba ay ku cisir dab iga dabkan aniga waa hadleena waa heshiina hada qeyr ku jiraan waa ka baxayo gurigan laakiin dabkan iga dib meelaan soo mar ma aqaan u leeyahay intaas muxuu sugayaa wuxuu ogsoon yahay aniga inaan forever joogi karin xamar inaan noqonayo oo ogsoon yahay kaas wuzdahinaya kino subinaya Nairobi aada ballo goyna hadda imaana kino imaana just a waste of time way wuxuu ogsoon yahay ninkan inuu maxal lahayo dadku waxa way oo qolka lahayn marka qolka lahayn kaga daranay dabcan nin macruuf meesha jooga dad badan oo yaqaana marka waxa jirta dabcan waxa lahaay ma ku dhahay corruption laakiin dad sheekada la socdaan oo wax walba ogsoon yihiin oo raacayaan marka mid uu yaablo waxa mataqaanaa زين iyo baan wax u yaab la xamantaqana aniga wiilkana ila soo ninkan ila soo xiriiray oo ka hadlo maxal lahay Facebook wuxuu yiri arintana maqlay yarka arintan soo galay Facebook way wuxuu yiri aniga arintana maqlay waa hubiyay dad badan oo wacay waxa arintan waa run marka uu soo wacay wuxuu yiri aniga kula hadla rabaa arintana rabaa maxal lahay marka yarkan ila soo xiriiray yar waxa waa aan ma isku yahay أسعارين تكعيي أو كل شيء ميدي وارث سمان يركان. سبحان. يركان ملا سعودي إنها أسبوع أكاونت كيس لحري. ها. أكاونت كيس ولا حري. يا مغلي. هي أكاونت كالجا. أكاونت ولا حري. هاي كور أرين ثاني دور. فيسبوك waxaa la isku caayaa siyaasi waxa la isku caayaa waxyaalo xun ah lees dhaha ma garatay ninkan wuxuu ka hadlaa xaq kaliya gar ka waran account wala laga xiray waxaan filaa ditore insha Allah taala kulli anagaan kula hadlayna xataa account kaas ayaan ka daawanay oo adiga aad yani la xiriirtay yarkaas kula soo xiriiray qofkaas runtii ka danqaday dhibaatada aad ku haysato soo gudbiyay oo Facebook iyo meelihii kale social media u soo gudbiyay runtii anaga taas ayaa laftirkeena yani inaan kugu aragno oo arimaha aan ogaano ayay nagu dhalisay waana rajaynaynaa arintan waa arin muwaadin Soomaali ayaa tahay oo xaq u leh wadanka oo cashuur soo bixiyay wax ku soo bartay u soo shaqeeyay oo adiga iyo familkaagaba 1962 guri idinka aan laheedeen oo milkiidiis aad laheedeen ilaa ay haddana murun uu ka taagan yahay waxaan rajaynaa marka caawa walaalaha qaaliga ama bulshooyinka Soomaali meel bay joogaan in sida anaga aan uga dalqanay oo barnaamijkan aan uga diyaarinay oo aan banaanka u soo dhignay waxaan rajaynaynaa dad kale oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo sidaan oo kale ayagan inay isu xilqaami doonaan oo arintaada insha Allah taala sidaan isi ka balaaran inay u soo gudbin doonaan warbaahinta caalamka iyo meelihii kale oo Soomaalida ay wax isaga gudbiso ay u soo gudbin doonaan laakiin waa arin runtii nasiib dara ah qof mas'uul ah oo waliba xildhibaan ah oo sida saaxiibkii Cabdiqaadir Zain hore u sheegay oo ah dadkii sharci dejiyaalka oo sharciga dadkii ilaalinayay oo xildhibaan ah oo mas'uul ah oo runtii dadka dhibaataysan loogu talagalay inay dhibaatadooda wax ka qabtaan oo qofkii maanta hanti laga haysto ay u kici lahaayeen waxbarasho dadkii u baahan dadkii caafimaad u baahan dadkii nabadgelyo u baahan dadkii nidaamka dawladnimo u doodi lahaa oo ka doodi lahayo oo yani meelaha qalad ka jiro banaanka soo dhigi lahaa yani maanta waa nasiib daro oo dadka shacabka Soomaaliyeed haysata qof mas'uul ah oo intaas huwan runtii oo waliba xasaanad leh xasaanadana waxaan ognahay qofka xasaanada qaato oo sida xasaanad uu leeyahay xildhibaanka xasaanad aad u weyn oo runtii lagu tixgeliyo mudan tahay xasaanadaas wuxuu qaatay inuu dadka muwaadinka Soomaali inuu ku badbaadiyo horumarkooda iyo sharaftoodana
uu ku ilaaliyo waa nasiib daro runtii maanta dad noocaas oo kale inay xildhibaan noqdaan mas'uuliyiin noqdaan laga yaabo dad qaarkood xataa sidaas oo kale inay weli ay mas'uuliyiin ay yihiin marka insha allahu tacaala waxaan alla ka baryaynaa oo ilaahay ka rajaynaynaa dad badan oo sidaadoo kale ayaa jiro oo sidaadoo kale u dhibaataysan famil ahaan ama shakhsi ahaan ama deegaan ahaanba u dhibaataysan marka waxaan rajaynaynaa inta kale ee dowladda ku jirto caqliga saliimku ah oo og inay mas'uuliyadda ay saaran tahay inay shacabka ilaaliyaan sharafta qofka muwaadinka Soomaaliya ilaaliyaan inay ayaga ay yani qaarkood ay fahmi doonaan runtii arrintan insha allahu tacaala mar dhow ay arrintaas ay soo gabagaboobi doonto marka cabdiqaadir zayn maxaa ku dar leedahay arrintaas hadda khadka telefoonka waa furan yahay midna waa u sheegaa oo mar walba aan ku celcelinayno horta annaga ulujeedadeeni xaqiiqa raadin waaye ulujeedadeeni waxa waaye walaal Soomaaliyeed oo dhibana ah oo xoolihiisii la haysto ayaan goosanay inaan garab istaagno annaga qabiil oo inaan qofkan ugu helinoono maaha qofkan internetkan ka aragnay facebooka waxaan dareenay runtii xanuun waa nin Soomaaliyeed dalka ka maqan dalka u soo shaqeeyey xuquuq ku leh waddanka hantidiisii la haysto xaq maaha xitaa qof ajnabi Soomaaliyeed deganaa in xoolihiisii la qaato iska dhaaf nin muwaadin Soomaaliyeed maxaa dhacay waddanka Soomaaliya ajaanib badanaa degan beeray ku lahaayeen guryaalay ku lahaayeen sharci xaqooda in loo ilaaliyo waa sharci inaan lagu tuman marka maanta waxaan aan nasiib dara ah qof mas'uul dowladda ka tirsan oo welina damac kale inuu yani maamul qabsado ama meel madaxweyne ka noqdo ama xildhibaan noqdo qofka noocaas ah sidee waddanka loogu aaminaa waa inaan runta ka hadalnaa qof oo yani noocaas ah hadda walaalka wuxuu noo sheegay inuu dhowr jeer ay la xiriireen uu meermeeriyey oo mataqaanaa ka fara baxsaday dhinacii dhinac u baxay dowladda naftirkeedii hadda ay iska dhega tirayso dabcan زين كاسو دحقلو waxaa ku jiraan qadka walaalahayga oo ku maqlooyaan telefonkaada sii waa lambarkaada sii ingiriis waa xataa nambarka meeshuu ku qoran yahay ditore nambarkaan ay soo wici karaan nambaraa meesha ku qoran codsanaynaa waxaan lambarkaan meesha ku qoran ma loo jeedo okay أنا شاشة استاجنا هالمر رالي هذا شاشة أنا كسو قرا. محمد فوزي تلفك قرطة يا. تلفك قرطة لندن واي. نمبرك ويرنينا هدي داون أيان نمبرك أيان ويرنينا نمبرك وحواي إبر أفر تضرب سديت لح سجال لابو شن هل وجد محمد ان شاء الله ولكن بلاش صوب عن بابلور تلفك هذا ما ليسو قرالان اركويا ان wax oo qof soo diray markooy qoraal badan arkoya oo ii soo diraayo marka adiga waa Usmaan adiga oraala adiga waa telefoonka muxuu yahay marka telefoonkooda WhatsApp ahaan تلفون صومالي أنا أركب تلفون سعود إنجليزي مو جيده. رحية فوزي وعي هذه. ها طبعا. صوتر تلفون كأميش كوكورة صوتر ده. تيتوري. محمد. ها وكم أغلى أخوي. مجرى دد أو دولة كتيرسن. jidkaan dheer markaad marteen dad oo arrintan xanuunsaday oo dowladda ka tirsan oo idin soo wacay ma jiraa ha ahaado hadda baarlamaanka waa xiran yahay magta qoy sax baarlamaanka waa xiran yahay dadku waa maqan yihiin marka laakiinse adiga ma malaysan kartid inta qof oo la soo xiriireen
madaxa sheegaysa dadka caadiga meel walba degan qabiil walba qofka arrintan maqlo waa ka gubanaya oo ka xumaanaya waayo xaq darra iyo wuxuu jeedaa cadaalad xumo faanta iyo xoog iyo awood lagu sheegtay macnaha waxaan ka wadaa dad idin kala qaaday inay idinla shaqeeyaan oo arrintii yacni wax ka qabanayaan ma jiraa dad arrintaas ballanqaad sameeyey ولا أنا سنور مركات تجي أنت سقفا أقبتين حل إيمان أو دبوتاتي أو كله نيك ولو بحي ولو كل شيء وهذا كويس لكن نيو حواي أو بحثنا يا أبو نينت نيم روم ناوي رجعنا ما كفر يست أورتا كور يست ملك هذا حال سوء اللي صار نقول برلمان كله فرو أو بحال ذاك صار فلسطين نيك هو مقيم بدك موجود وحجرة نيروبي وحجرة كسمايو كسمايو مدح wuxuu ku jiray campaignkii Kismaayo madaxweynenimo isku soo sharaxay haddana wuxuu noqday markii Axmed Madoobe uu ku guuleystay sida la sheegay isagana dhinac kale koox kale ayaa waxay dhaheen xidig ayaa guuleystay oo madaxweyne uu caleema saartay arrintaasaan ogeyn oo aan ka daawanaynay telefishinada Soomaaliyeed وعليكم السلام waxaan naga soo wacdaa telefoon caadi naga soo wacday qoraal ah kan waa video WhatsApp adoo maadsan Cabdiqaadir Zayn waa ku maqlaa marka waxa waaye dad oo macnaha oo xataa qabaa'ilada waa la xiriirtay ma dhaafay qabaa'ilada Soomaaliyeed marka wax oo ka soo baxay ma jiro natiijo meeshaas ka soo baxday hadda maxaa ku qorsheysan adigoo raali ah Cabdiqaadir Zayn okay السلام عليكم Cabdiqaadir min maqlay si fiican أيوة لو سبوعه يا وحير سوق صاحب السلام عليكم وعليكم السلام magacaaga iyo meesha joogtid waxaan joogaa aniga hadda magaalada Boosaasan joogaa soo dhawo magacaaga magacayga waa Cabdirashiid soo dhawo barnaamijka waxaan u maleynaa inaa la socotid barnaamijka kolay ba uma baahna inaan warbixin dheer ka siino bal maxaa raayigaaga iyo fikradaada iyo su'aashaada ay ku saabsan tahay aniga horta hal arrin aad baan waxaan horta kala soo jeedin waa meesheeda ma garatay wax yar sug Cabdiqaadir mi maqlaysaan editoorka si fiican waa maqlaysay ma fiican ku maqlaas haya Cabdirashiid waxaan rabay dhakhtarka inaan su'aalo nimanka maamulka ama ciidamada booliska ninkan xildhibaanka sheeganaya sanadale xaqa ibni aadamka haysta 30 sano waa ka badan tahay hadda inta wax la haystay macnaha hore uga sii soconaysaa waxa weeye muu la xiriiray mise wax waa u qaban waayeen mas'uuliyiinta nimanka ciidanka ama booliska annaga waxaan daawanaa maalin walba dad la sheegayo guryahoodii in loo celinayo ama in wax la siinaayo baan daawanaa marka sometimes waxaa suurtagal ah ninkan wax laga qaadayo waa iska shacab kan loo celinayana waa shacab laakiin kii saanada dowladda ku jiray oo wax laga qaadayo horta annaga weli ma arkin marka waxaan rabay dhakhtarka inaan su'aalo nimankan dowladda booliska ama CID-da ama macnaha ama warqadaha ra'iisul wasaaraha oo kale dowladda macnaha kabineetka warqadihiisa ma gaarsiiyey maadsan tahay kolay waxaan filayaa su'aashaada si fiican lagu fahmay doctorka haddana barnaamijka bilowgiisu ka hadlay waxaa laga yaabaa in adiga dhexda ka soo gasho marka doctorka waxaan filaa inuu su'aashaada uu aad u maqlay uu dhageystay oo runtii insha Allah ta'ala uu kaaga jawaabi doono والله سؤال في عنواي رنا هذا سؤال في عنواي تا هرو الشيء أنا وحنا هنجر عيدمة البوليسكا
ومغلي أو ملينا عبد الرشيد بمغلس عبد الرشيد ما مقل دكتورka codkiisa ma maqlo بمغلس دينا تلافك اسكدم من مركز فيسبوك كلا صعب ها عبد الرشيد يو عثمان قدك أيك بحين إن شاء الله ولا لها خد كلا أنتو عثمان كسون قنايو لمبر كلان عن سوقري دونا إن شاء الله لمبر كاس أياد نقل سو حرير الدونتان إن شاء الله دكتور جواب تسيوت جواب بوليس كشيء أنا وحلا كل ما أو سنة غاني بيرسونال سنة غاني تجاه عندك بوليس بشير أمريكا جنرال ما شاء الله بشير أمريكا بدو كولوني بشير جوب وأصلا قذيني أريد أصور حدقي قريق وحاج جوني عثمان دوفلة دكتور دوفلة قريق سان جوني وي أركان وحان سرقان دوكومنت إيه كان إسي ده سنة غانوا ولي سنة غاني جري لكن الباب كوالفوري واي تجاه عندك بوليس كا ويدا ذالي وحول بورات شيء لكن ينت ولا شو بواي ها عثمان ويلكم باك مركله سونقتو وعن ميل سعوتا ها سفيعا وقد التليفون كحوغا ان خد كان تليفون كان استعماله يا ليغا سو غلay taas darteed aan qadku ugu baxay ها marka telephone kale hadii aan ku qoro oo walaalay si ay inoo soo wacaan number kale suurtagal miya ha ku qor mid kale ku qor insha Allah ha number kale aan ku qoraa si midkii markaas walaalaha u fududaada inay naga soo wacaan insha Allah wadoodii waa UK معناه موضوعا وموضوع مهم او وباهن سومالينيمو ان ليسكو غرب استاو مواطنين مسؤوليه ايا كسارن دوله مسؤوليه كسارن شخص والبا مسؤوليه كسارن ارنتان waxay u baahan tahay in loo عبد القادر على وحير سك قد تليفون السلام عليكم سفيعا horta waan fahmay dhakhtarka hadalkiisa laakiin waxaan rabay inaan ogaado ninka magaciisa ma ogaan karaa anaga ma ogaan karnaa oo la sheegi karaa taas barnaamijka caawo dhan aan ku celcelinaynay waa xildhibaan cabdirashiid xidig ninka guriga haysta cabdirashiid xidig miya ha waa dictorka asaga hadda codkiisa aad ka maqli doontaa bal dictor qofka guriga ka haysta bal adiga u sheeg bal saaxiibka khadka telefoon ku jiro marka halo dictor adiga arinta mawla ya walaal ma arinta lama socdo waxa laga hadlayaa caawa mawduuca maya mar dambe uu soo galay laakiin fahamsi dictor adigoo mahadsan bal qofka magaciisa iyo darajadiisu sheeg السلام عليكم انا وحالد ده دكتور فؤاد عامر ترموم مايا نيكا هيس هو حلبان حدك حلبان كده تان كترتموي جوبده هوسه جبلان ها كسمايه مو كويس تامسه ومقدشو فيلا صوماليا اغاريدا فيلا صوماليا غوري وحو جرا 100 ayuu wuxuu jiraa aqalka madaxtooyada dhinaca boondheere واقرت لكن عبد الرشيد حدق isaga dadkii oo xamar laga bixiyay uu ahaabo oo daaroodka ahay Soomaaliya goor buu qabsaday yaa ku sheegay wallahi kullay ninkan waa nin dawladda ka tirsan ama horay xildhibaan u ahaa jiray ama horay wasiir u soo noqday kullay laga yaabo dhinaca dawladda inuu ka soo maray kullay dictorkana warbixintaas mar hore uu noo sheegay markaan barnaamijka bilaabeynay uu ka hadlay wax badan oo isku qasi uu leeyahay mar wuxuu leeyahay Sheekh Shariif IC mar wuxuu leeyahay
cali maxamed geediya isii uu leeyahay marba wax buu sheegaa laakiin haddii barnaamijka aad dib ugu noqotid wuxuu ka warbixiyey dictoorka intaasoo dhan inaysan jirin dowlad kasta oo dowladdan ka horeysana dacwada inay socotay dowladdan hadda jirta oo farmaajo iyo kheyre ayagana mas'uulka ay ka yihiin ilaa iyo guddoomiyaha gobolka ilaa iyo saraakiil ilaa oday dhaqameed ilaa iyo xildhibaano nooc walba oo bulshada ay ka kooban tahay xataa culamaa udiin ay ku jiraan ayaa ninkan guriga ka qaadi waayay doctor sas maaha saas way ha ماشي بين محل اسمه شيء مركا انا معناها محل بين اسمه شيء دولة مركا دولك محل بين لو شيء صومالي سنة لا اسكاعات انا ما ممكن بينتا محونا ودسيه يب إن شاء الله خير waa ku maadsantahay fikradaada iyo su'aalahaaga aad nasoo weydiisay kulay dad badan qadka telefoonka soo geli doona waa ku mahadcelinayna aada u maadsantahay waxaa muuqato cusmaanow meeshaan marka fiiriso dictoorka hadalladiisii ku takrifal awood markii xasaanad lagu siiyo oo lagu dhaho xilwaanaad tahay xasaanadaad leedahay soomaalidii awooddaas iyo xasaanadaas ayay ku takrifalayaan laakiin waxaan rajaynaynaa dowladdan waxay u sii socotaa yani ala leeyahay meeshii ugu dambaysay oo ah one man one vote waddankan inay ka dhacdo dowlad sax ah marka dowlad sax ah ma imaan karto iyadoo ay jirto waxyaalahan muuqaaladan aadka u foolka xun shakhsi caadi ma aha ninkan hadda goobaabinta ku jiro shakhsi caadi ma aha ninkan caawa aan ka hadlayno oo la leeyahay guri muwaadin Soomaaliyeed ayuu degan yahay dictoorku wuxuu leeyahay sagaal sannadood ayaan ka daba ordaynay uuna leeyahay marba sheeko marka Soomaalidu waana maqlaysaan laba telefoon meeshaan ku qoran labadaas waad soo wici kartaan lambarka kale waa 447 waa WhatsApp-ka waa free lacag la'aan ah codkaagi si toos ah loo dhageysan doonaa waxaa naga reeban kaliya aflagaado dhaqan xumo shakhsi weerar anaga waxaan kaliya doonaynaa ulujeedkeen uu yahay xaqiiqo raadin waa in bulshada ay ogaataa waxa jiro meelna waxaan ka daawanaa aan aragnaa maalin walbo muwaadina gurigiisa loo celiyay hebelaa guriga laga bixiyey haddana waxaa maanta aan ka dhegaysanay baraha internetka walaal Soomaaliyeed oo gurigiisii la haysto yaa haystaa ma burcad baa haysataa maya waxaa haystaa mas'uul ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya isla markaana isku soo sharaxay madaxweyne maamul goboleedka Jubbaland waa arrin aad iyo aad u cajiib badan waay waa arrin kala leh waa arrin aad looga naxo Cusmaan adiga waay runtii waa sidaa sheegtay qof walba oo عفوا اخوي dad baro ina ku tan telefoonka always busy way telefoonka busy Cusmaan telefoonka busy maaha waa telefoonka qofkii qadka caadi u soo galo waa ka qabanaa sida hadda walaalkeen oo hadda Soomaali naga soo wacay oo kale laba jeer ku soo noqday marka dadka xogaa inay wax ka qaldiina u malaysaa marka telefoonka meeshuu ku qoran yahay waana diyaar qadka waa furan yahay haddii alla yiraahdo xataa lambarkan keba ka soo wacay barkii waxa waaye lambarkan kala soo wac ana hadda toos qadka u soo gelinaa Cusmaan wuxuu joogaa Ankara aniga waxaan joogaa London marka fudud insha Allah ana soo gelinaa waa 447 you're too fast amo too fast haye waaye 4 oo furaha 4 haye waa furaha 744
sideed todobo sideed todobo saddex saddex sagaal saddex saddex sagaal todobo todobo اوكي ما سنت ولا شكرا جزاك الله marka markaas ala soo garaaco nin walbana xaq buu leeyahay inuu fikirkiisi su'aasha xaqadka waa ka babaxaysaa Cusmaan waa kugu soo celinaa shaashada waa ku jira sug waa ku jira qadka caadi ugu jira way maqlaysiina umaleena طبعا waxa qadka hadda ku jirto oo hadda live ah walaasheena Fawziya Caamir Tarmuum oo ah walaasha doctorka marka soo dhawow Fawziya السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الو أنا سؤال بيويدينه سلام أنا وحشة. إن هذا وحشة كتير أما دي سؤال ولالك ويدينه ست دكتور فوزية دكتور فؤاد كجرو. برنامج كصوّع وعد هذيك. لايف كصوّع مياه. لايف أو صوّع وعد. لايف خدك بس خدك وأقول أي خدك كل دتك الله كصوص سوّع أي بل إن شاء الله. واتساب كان كنا هنا. هلو قد كستوس دكتور كمحاوي دليت ورحمة الله وبركاته. دكتور هذه الزباسية سيدة برشلة الصومال وسوق بي طرق هذا أنا كنت بيني مانتا إن عدالة يرى يصوب ورخصة الصومالية كذا فريقان ودراي رنهانتي مدح وزارة دولة مدحوينا محمد عبد الله فرماجو رئيس وزارها لبدا قولة برلمانكا قولها ساري وبرلمانكا كلي إجازوين أي مخيين لكن إن شاء الله أرنكان صحيح لو جرى وحير كده بسؤال تفضل كانوا أرنو أدكي وض محمود وضو وكم مغلينا سيد عم أرنو بيري مستقبل حلو waxaan rajaynaynay maadaama intaasoo sannadood dacwadiisa soo socotay doctorka in laisku dhintay in xildhibaan xidig jidadka ugu wanaagsan loo maro ha yeeshee mar walba yani balantii uu yani khilaafayay sida yani diinta islaamka ayna farayso qofka munaafiqa ah ama qofka aan wanaagsan waxaa lagu gartaa in balanta marka loo dhigo inuu balantaas buuyo waxaa marka ayaan dara ah in taitleka xildhibaannimo sita md isla markaasna maanta isu taagay inuu yahay madaxweynaha jubbaland in arrinkan yani uu dadka ku dulmo gaar ahaan anaga run ahaantii waxaan filayaa maadaama doctor caamir Tarmuum yihiin dad macruuf ah dad wadaniyiin ah isla markaasna dadka loogu awood badan yahay soomaaliya maanta maadaama yani soomaaliya 4.5 dhanka 0.5 marka cadaaladda yani in yani waxaan aaminsanahay gurigaas haddii yani afarta kale ay lahaan lahaayeen mar hore meeshaas la isku baabi'in lahaa maadaama dadkan 0.5ka ay sabar badan yihiin dulqaad badan yihiin assalaamu calaykum lagu soo dul soconayay marka waxaan soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo aan jecelnahay mudan maxamed cabdullaahi farmaajo gudoomiyaha baarlamaanada maxkamadda sare iyo tan ugu muhiimsan oo ah gudoomiyaha gobolka banaadir ee cusub ee maanta la doortay run ahaantii khudbadihiisa waxaa ku jiray in maanta wixii ka dambeeya la dulqaadi karin muwaadiniinta soomaaliyeed ay isku mid yihiin guri xaqdar lagu haystana uusan ka yeelin marka mudane gudoomiyaha gobolka banaadir cumar filish ahna duqa magaalada muqdisho waxaan ka rajaynaynaa in arrinkaas shakhsiyaadka fara badan
arrinta inuu soo dhaxgalo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xaqdarada وحير سوق صاحب حسانة دبلوماسية أو حسانة دولة ستنا إن شرقية محمد فرماج حتى مسلم كسرين إن شرقية وتدعو سلطاني وامتحان إن شاء الله تعالى قدوميها قول قدراتر أحمد ضخم مخدشة كورتال سيدو كلا قدوميها محكمة سري سيدا دراتي إن شاء الله تعالى ولكن وحالة لنا يا رحمة تكون إن أرنكا ما دام يعني ama hadda yani dibadaha ku nool dacwadana insha Allah soo gudbiyo intiisa kala biidnillah azza هذا ما سنتهي محمود عبد الله بافضل صاحب قدك تليفون وبيزي دتك هذنا قدك سوق لي بل ان شاء الله تعالى ان ايغا ان كخبنو ايه ادي واي السلام عليكم السلام ورحمة الله walaal adigoo mahadsan meesha joogtid iyo magacaaga magaalada muqdisho joogtaa codkaagan waxoogaa waa naga dheer yahay si fiican waxoogaa hadda okay waaye maadaama meel fog la kala joogo marka magacaaga maxaa tiri maxamed adigoo muqdisho joogo barnaamijkan aad daawanayo waqti damban idin tahay waxaan filaa in xoogaa ay ku dhibtay barnaamijkan dhibaatada meeshan ka taagan iyo yani insha allahu tacaala iyo dhibaatada meesha ka jirto marka adigoo soo koobaya dictorka di su'aal aad qabtid iyo wixii fikrad haddii aad haysid noo soo gudbi dictorkan su'aal u qabaa marka horeyso dictor waa maqlaya umaleynaa ku maqlahaa si fiican دكتور waxaan ku weydiinayaa ninkan wuxuu sheeganaya ninkan wuxuu haystaa oo dukumenti miyuu wataa muxuu ka hadlaya taas jeclaan inaan weydiiyo والله وسؤال في عن السلام عليكم سؤال في عن سؤال هذا ninkan wax document isticmaalay asaa qirsan inuu guriga sal lahayn oo qirsan haye ninkan dad waxa jira markii guri ku doodaan leeyin aan document baan qabaa aan document qabtaan faant oo marka sheekaas ma jirto ninkan document ma qabo وقرسيها تقول لهين مركز تكون ما تنحبلي السالس كمان نيكا وجوينا وجوينا يورالو وبين له أقوى إيمانه ما قوي هو بقول أذيال ولا إيمانه حتى إيمانه وبح نيروبي هذا وصلنا وحنوسنا شربان كجرا وحش أنت ما لنا صوف الأسود دي ما قصنا نقول جايستا هذه واجي وحوج كويس يا عبد الله يوسف علي محمد جيدي اوكي ما فهمت مر العود وأنت أكو قرقارو ما يمقشها هذا وأنا هوش هذا وقرينا بعون الله تعالى وقرينا الله نوقري هذا إني سلام أيانا maxamed aada u mahadsan tahay dadka wax laga filayo ayaa tahay oo magaalada muqdisho jooga oo runtii la rabo inay dadka dhibaataysan oo dulman oo runtii sida doctor Fuad oo kale ama boqolaal kale ayaa jiro oo sidaas oo kale maadaama wadanka 30 sano iyo ka badan oo burbur iyo dagaalo sokeeye iyo dhibaatooyin badan ay iska jireen marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa kaalinta kaaga aadan in insha Allah taala aad ka qaadan doonto qof walba oo mas'uul ah oo Soomaali ah ama mas'uul ahada ama shacab ahado kulay hiladiisa iyo xaq u dirkiisa kulay waa waajib muwaadin kasta saaran qofka Soomaaliga ah qofka kale Soomaaliga waa walaalkiis waa ehelkiisa waa familkiisa marka insha Allah taala qof walba dulman waxaan rajaynaynaa in ilaahay dulmi uu ka qaado inta dulmiga haysan insha Allah taala waxaan ilaahay ka baryaynaa in dulmiga ay dadku ku hayaan inay fahmaan oo ay ka toobad keenaan walaalkayga maxamed aada u mahadsan tahay waa ku soo dhaweynayna fikradaada iyo su'aashaada waa maasantii aniga caawa waqti ugu horeyso hadaan caawa ugu horeyso inuu guri haysto wuxuu ku haysto marka wax loo dulqaadan kara maaha hadda in islaamaya goodbye aada u mahadsan tahay sidoo kale assalaamu calaykum waxaa jirtaa su'aal oo walaalaha ka mid ah soo gudbiyey dictorka wuxuu yiri waqtigii Cabdullaahi Yuusuf laga soo bilaabo ilaa maanta Cabdullaahi Yuusuf wixii ka horeeyay guriga xaaladda uu ku sugnaay yaa deganaay
guri iska u ahaayo aan la deganayn bal ditore wax ka dheeba taas وريه ساولو سعوتان واقع حمر مدقنين بوق باجري رفادا جري دقالا جري ماشي لو مسو دوان كرين ماشي مدحتويدا وقريش بدن كودك وكما غناين جاسبر بنانك جرين قريه ويسكا داي عساناين قريه هم فانتي مركو وحورنا انتي كعن لغو مهين لكن ugu yaraan in oo la degan yahay xataa guryo badan waxaa jira oo xamar dadkii ay ka soo qaxeen oo dagaalada laga soo wada qaxay meel walba ku yaalo dhibaato kasta ka dhacdo dagaal kasta ka dhaco haddana qof walba wuxuu ogaa in gurigiisa ama hebel iyo hebelba ha deganaade at least inaa gurigiina la degan yahay oo dad uu degan yahay xildhibaan xidig ka hor ma maqasheen ama maba ka warhayna guriga totally may waa ka warhayna laakiin dad waxaa deganayeen oo maxaa la oo iska masaakiin oo xaafada ha dad anaga guri u dhiban faantay ha marka xogaa furmay xogaa yar oo dhaqaaqa imaade markaas guriga tagan anaga markaas aan dooranay marka waa faraxnay waxa lahayn qof waxa arkaysan oo mas'uul ah oo waayaraga isma lahayn qof ku leeyahay lacag ay gashay lacag isii oo bilaaw yiraahdo 20000 leesiyo kadib wuxuu yiri 35 kun leesiyo see lacag uu diin karaan xildhibaan aniga سأوتا وحسب معقول قف موريان مش قف حلبان واحد بس كحده قالوا كاسوه معناها حلبان كبحوية حلبان وانن اوددك اوكي مسؤول تدل صوت دورتي ومثلا وحويها مسؤول انت تقف كوبنات قفوا مثلايا سو ليك رقنين سومالي السي لعق السي وكاقبح قوري هذا فوق الأغلى واي فوق الأغلى هذا البوحو كوير هلسيو بالله ولا ما تنكن كدب صدر الشنكن دكتور adigoo mahadsan baadaama barnaamijka muddo aan ku jirnay walaalo badan khadka telefoonka ay nagala soo xiriireen qaar kale oo u suuragal waayeen ay dhici karto in ay khadka ay waayeen marka إن شاء الله تعالى وعن اسكو دينا إن برنامجك دقيقة يركدب إن برنامج سوق قبينه بل عبد القادر زين صاحبك محاول كردين لهد وقتي قلتي قبل برنامج أيال الجوال وحجر السؤال ولا لا سوق بين معناه قفكستنا فرصة سينينا إن أي متقانا سؤالي سي نوعي دون تبع عديسا شخص ويرر أهن وان قدبنينا معناه مركز سوماليا تكتي أما أديك هذا أما ورالك هذا مش كده إذا إنت مدحوينها توس وتكتو مدحوين محمد عبد الله فرماجو مش كده ما سمعت والله ولا تنكون سوق شيء فوزية ولا وجي مدحوينها ولا هذا فرماجو مدحوينها لوجي هي فوزي waa ka xumahay qadkay soo gashay laakiin xogaa I don't know in xogaa فوزي si alku jiro Usman aniga ii soo dir ana qadkayga xoog soo xiraayo su'aalan naftarkeedii weydiinayna oo markii ay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo la kulantay wax yar isuk marka madaxweynaha maxaa ay ku wada hadleen ayada iyo madaxweynaha macnaa arintan madaxweynaha markii loo sheegay muxuu ku jawaabay horta madaxweynaha waxa uu geysay gabar senator oo la dhahay Zamzam oo badho taqarax Soomaaliya oo tacsiina دكتور وحير رال دكتور خدك تلفونك على وجرا هذا ماشي على كسي ود دونه مركا ان شاء الله تعالى بل قف كان قد وجرا ان ويدينه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله محمد صلى الله عليه وسلم محمد تفضل waxaan soo laabtay dalkii garsoor baan ka jiro garsoorka ka jira ma ka dacwooday oo dacwo ma ka furay qofka sharci ka ma sareeyo qof sharci ka sareeyo ma jiro دكتور مقلي ولا أنا وراقي دم وهينا محكمة وات تجني وكنت دعوين
سوق محمد وكو وضاي سوق دكتور كو هدلا وحير وكاذب هاي دكتور محكمة واتجاوني وحاغبني لو يرى غورني أبوكاتا غبني ودعويني حقالتي نكا ولا سوعي كالي باجري ودي وما وي هو إمام واي ما وي محكمة كون ما قاعد ما وي لبان لقى قادنا محكمة محي قوان وقادم ويسو كلية مواطن كان صوماليات محمد أنا مجوجنو الله تلياني أم إنجليزي أم أمريكي مجوجنو سؤالها قرب كذا فهمي كذا جوابته ده قرين بعد هاي قرين بعد تبسطي قرين كاسا كو هذا كو جوجا محكمة هذه المقنطة قرين كهذه محكوسو كبي فينك واحد سوق دي نكان جوان سوق جاري هذا نكاس كلو نكان هذا مغلن نكان والله وعي كالي باجري ما كذا يا حق ولا هاي حير ما قد حسبنا حير garsoore xaq u leeyahay markii qofkan la waco warqad ay gaadho inuu imaado waa waajib hadduu imaan waayo maxkamaddu tallaabooyin bay qaadaysaa maxaa tallaabo ay qaaday ninka imaan waayo والله أنا يوم محمد الدنيا كله كنوش وملأ ولا لو مقلتي صومالي وجوجا قف كان صومالي وجوجا كل هذا مقدش وجوجا waxaan tagnay 5 sano kahor 4 sano kahor aan tagnay wadacweyni keesku wuu jiraa wuu socdaa wax walba socdaa aw laakiin male wala dhaqaajin way afar kiiski soo socda maxkamadda gobolka banaadir maxay ku xukuntaa adig la qof wala soo qaban gobolka banaadir go'aan way gaari weysay go'aan way gaari weysay وحلوان متابن كرنو وحو قوا immunity قوا immunity متقنا وحسانة أقول لي متابن كرنا دهن إلا برلمان كسوف صحوا سلام شرعي سامح حل ما نمط ميل كل فدي حل ما ندك القماد أو القماد والبيو حل ودك كانت كسرتنا كبديني ماذا وقسم كبديني ماذا وقسم محمد أديكو رال دكتور محمد مين مغلسة محمد أديكو رال ولكن مقدشة جوكتا حالة ودن كوكسوجين وعلى صعوبتا سيد الدولة ده وشخيص النظام كهذا ودن كجر كلي قف ما أنت حقال وأنا نجا حقال سن أياتهاي marka doctorka warbixin kooban oo dhameystiran ayuu nasiyay ilaa iyo heer xildhibaano ilaa iyo heer oday dhaqameed ilaa iyo heer oday maxaan ku dhihi lahaa culama udiin maxaan ku dhihi lahaa gobolka banaadir oo waagi ninka la dhahay taabit iyo yariso allah yarxamo iyo intii oo mas'uul ah ayaa arintan gudagalay arintaas wax waa laga qaban waayay ayuu taagan yahay doctorka marka sharciga wax ka qaban waayo sharciga wax ka qaban waayo saas warka saas u dhacaa saas soo ma doctor هذا بركلا سود وعلني محمد وحير دكتور سوق وحير سوق دكتور المر وحير دقيسو دبانها وحير هاي مغلو كم مغلا دوميها قبل شغل كمالي محكمة ده توقف كيس كفرين دعوة كيس كفرتها محكمة ده يلا رواقون هيك قالوا محكمة إذا البوليس إذا الدجاج هو واجب محمد سؤالك ودينا ولا له انت قف اسكو هيسان الصومالي لول سؤالك ويد محمد دكتور سؤالك ويدينا وحير سوق هذا وراله دكتور محل هذا انا سؤالك ويدينا محمد ما قبل جيران او حمر جوغان او محكمه او wax weydiisteen oo sanooyin arinta socoto bari la xal wax badan baa la xaliyay waxna waa dhimay dad caadi oo isku dacweynaya dhul igure ka waran xildhibaana wax badan baa la xaliyay badan baa la qabtay kale maanta ma aha adiga maxamed maxallinaysa arinta ma geli kartaa walaalo ma kuma kaystaa ma yaga qareen baa leedahay qareen hawshaada waa like ka soo wixdoona duleedaa هذا ما تنتهي محمد إن شاء الله تعالى different واي سيدا أن فيلا دكتور كو شيء حوجا وحوم ليس دعوتها إنه كلا أذكيين كلا حوج بديين كلا شرعيين كل دكتور عليه هاي ولي مد ننحل لبانا محمد أذكر على ننحل لبانا إنه جوري أو ضد مواطن أو صوماليات أو هيستو أو محكمة لوجيري أما ملك كلا لو صومري أو
يعني aan xildhibaankan aan ahayn weli taariikhda yani lama hayo taas ayuu wuxuu leeyahay way adkaatay lama aha qofkan qof shacab ah laba qofood oo shacab oo yani hay'adaha garsoorka awood u leh inay wax ka qabtaan marka ninkan waa xildhibaan waxyaabo badan xasaanadu uu sheeganaa waxaan leedahay hadda mar kale soo dawacin maxkamadda maxkamad u sheeg ya hadda tan ku jiro mar kale sii wada dacwo hadda wuxuu leeyahay dictorku wuxuu leeyahay inaan maqashin kale ma og wuxuu leeyahay anaga arrintan kama seexanin laakiin weli rajo waxaan ka leenahay in maxkamadda aan sii wadno insha allah ha insha allah aada umahadsan tahay waqtigaaga qaaliga aad na siisay aad iyo aad ay umahadsan yihiin walaalihiina la soo xiriiray oo qadka teleefonka na soo wacay saacad iyo dhowr daqiiqo ayaan qadka ku jirnaa marka hal walaal su-aashiisa ayaan gudbinaa walaalka wuxuu leeyahay maadaama qad dheer aad soo goyseen maxaa hadda idin qorshaysan qorshihiina hadda maxaa waay maxaad damacsantihiin reer tarmuun والله هرتكو وحد مع سنة وحورت له إلهنا قاعد نسير تكو صح هذا كو بقرت إله وحو محلها أو كوفو ذينا بكوفو ذانا تلامات محانو كلفي أنا غير عام ردانا أنا استعمالنا السوشيال ميديا والباب والبقرة يعني ونفوت بواي بقول الباب سكو فيرني والحلين واي سوشيال ميديا فايديس وحواي الدنيا مالو بالقارية صح maalmahan arintan socoto ma malaysan kartaa intaas communal qof arintan oo gaartay marka waxaan rajaynaynaa inay maxkamad iyo xildhibaan iyo prime minister madaxweyne waxaa siin arintan xogaa ka danqadaan inay xaqa ilaaliyaan in muslim noqdaan uruna taasaa ka rajaynaynaa يعني شرعية وإنه كسرية قفل هذه شرعيه وإن يعني كسرية قفل وإن وشقية ودن كان وحلو بدبادي كرو ودن كان لو بدبادي كرو أو ودن كان لو رسي كرو وحواي ودن كان وإنه نقضى شرعي نظام يكلا دنبين وحا إلا يحد تعبك أي كغيرنا يا وحواي متماسخ كتكرر فل أود هدين وشيء لبان وزير أقاسمه قدومي معناه إذا ما أود أتعيسك إن تكتمتد معه وحتى شغالة برشة وأذيعي مدحوينها شعبك وأذيعي إذا الوزارة شغالة وحوياي شعبك وأذيعي مرك أود أي حيستان معها إنه كتكرر فلان سياس أيا sida saxda ah walaalo badan ayaa runtii muujiyay dareenkoodii qaarkoodii waxay soo dirayaan duco qaarkoodii waxay leeyihiin waxaan rajaynaynaa in dowladda qayladhaantan oo dhinaca social media ay maqli doonto oo si dhaqsi ah ay ugu jawaabi doonto runtii hadda ka hor barnaamij sidaan oo kale ayaan waxaan u samaynay muwaadin Soomaaliyeed oo dhawaan geeriyooday runtii dowladda maalmo yar gudahoodii jawaabay ka bixisay tanna waxaan rajaynaynaa in muuqaalkan aan caawa baahinayno anagoo ulujeedadeena ay tahay inaan garab istaagno muwaadin Soomaali dan gaar ah ma leenahay ulujeeda kale ma wadani arrin siyaasadeed ma wadani arrin qabiil iyo kooxaysi maaha waa arrin Soomaalinimo danta guud iyo maslaxada guud Soomaalinimo anagoo ilaalinayno marka fariinta aan dirayno waxa waaye haddii aan bahda warbaahinta bulshada banaadiriga ambareela oo midaysanaan nahay waxaan rabnaa dowladda inay jawaab dhaqsi ah ka bixiso oo muwaadiniintan Soomaaliyeed xoolahoodii si dhaqsi ah loogu soo celiyo marka fariinta ugu dambayso oo aad hawada marinayso doctor maxay tahay message-ka gudbiyeysta message-ka diray waxa waaye Soomaaliya nahay 4.5 iyo waxaas ma aaminsani Soomaaliya nahay
nin walba Soomaali kan kale waa walaalkiisa waa simannahay from president ilaa ninka u hooseeyo sharciga wana la ilaaliyo sharciga qof walba uu taabanaya waddankan wuxuu ku dhisan yahay sharci marka sharci hal ilaaliyo waxayna la soo celsho anaga xaq darro ma rabno xoolaheena oo dagaalameynay dadkan muslimiinta Soomaaliyeed gacan siinana aad u maasin yihiin maalin walba kumanaan la soo xiriiraan meel walba adduunyada oo ku faraxsanahay waayo dad oo dareen leh waa dareenkan waxa rajaynaynaa xataa inay madaxdeena xataa gaarto garan inuu gaaro dareenkan aad u maasantahay Cusmaan دكتور هذا وما تنتهي يا عبد القادر زين صاحب كيغا وحان اخريي كومنت هاد ugu dambeeyay oo ahayd dad qof commenti soo bixiyay oo dhahaya xildhibaanka ma qofkaas guriga haysta waa qof haysta dhalasho oo wadanka Ingiriiska hadii arintan sii socoto ma lagu dacweeyo dawladda Ingiriiska maadaama passport oo Ingiriis ama dhalasho Ingiriis uu haysto waa qofkaas fikradiisa waaye kulay laakiin waxaan rajaynaynaa ilaa ay heerkaas inaysan gaarin oo insha Allah taala in Soomaalida dhexdeeda isxaliyaan oo dadka mas'uuliyiinta wadanka ama aday noqon lahaayeen culimada diinka iyo ganacsatada iyo waxgaradka iyo nabadoonada ugaasyada xildhibaanada qaarkood iyo madaxda ugu sareysan wadanka xataa inay soo fargeliyaan iyo maxkamadaha ka jira wadanka gaar ahaan gobolka Banaadir marka insha Allah taala barnaamijka maadaama waqtigiisu aad yani u sii dheeraaday waxaan rajaynaynaa dad badan oo walaalo qaali ah in qadka telefoonka u soo gali waayay qaarna ay runtii ay ka qayb qaateen fikradooda ay soo gudbiyeen qaar qoraal soo gudbiyay qaar telefoonka nagala soo xiriir marka insha Allah taala aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dhammaan inta ka qayb qaadatay barnaamijka habsami socodkiisa inta daawatayna waxaan insha Allah taala aan ka codsanaynaa inay walaalkan muwaadinka Soomaaliyeed gurigaas dhowr iyo 10 sano ilaa 20 sano ku dhawaad laga haysto oo ka maqan gacantiisa ay ka maqan tahay oo ah hanti oo family dhan oo reer Caamir Tarmuum la yiraahdo ay leeyihiin ma aha shakhsi kaliya ma aha waa family dhan oo dhibaato loo geystay marka insha Allah taala walaalaha qaali waxaan rajaynaynaa inay barnaamijkan ay sharagrayaan qayb ka qaataan waxyaabo oo waxaan aan ka wanaagsaneen oo yani aan munaasib ahayn ay meel walba ay ku sharagrayaan marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa walaalaha inay dhinaca Facebook iyo YouTube ay sharagrayn doonaan bal insha Allah waxaan rajaynaynaa in sharciga uu sareeyo in qof walba oo muwaadin Soomaali inuu xuquuqdiisa heli doono waana arin lama filaan ah qof walba barnaamijkan caawa daawaday ka soo hadlay kaan soo hadlinba waa mid urkutaala ah qof mas'uul ah oo xildhibaan ah nin qof muwaadin ama family ama qoys Soomaaliyeed qof kale oo asagoo oo xildhibaan ah xasaanad huwan inuu muwaadin kale oo intaas yani dhibaato u geysto oo intaas oo wadan loo soo maro oo ilaa haddana xal laga gaar waayo marka insha Allah taala ani kulay waxaan rajaynayaa in barnaamijka intaan aan ku soo koobi doono walaalaha qaali waxaan kaloo u sii sheegaynaa barnaamijkan ma aha barnaamij qof iyo laba iyo saddex oo anaga aan ugu talagalnay oo aan xuquuqdooda ku ilaalinayn waa barnaamij qof walba oo Soomaali xuquuqdiisa aan ku ilaalinayno qof walba Soomaali dhibaatada haysata wuu noo soo gudbin karaa wuu nala soo xiriir karaa barnaamij noocan oo kale iyo mid ka sii balaan ayaan insha Allah taala aan ka sii diyaarin doonaa marka insha Allah inta ka horeysa saaxiibkii Cabdi Qaadir Zeen oo barnaamijka aan rabo inuu noo soo gabagabeeyo ayaan ku wareejinayaa insha Allah runtii gabagabadii iyo barnaamijkii joognaa baaqa aan dirayno mar kale aan ku celinayno wax waaye sharciga ha sareeyo mar walba dowladda madaxweynaha yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo guddoonka baarlamaanka labada aqalka sare iyo aqalka hooseba kulli dhammaan waxaan ka rajaynaynaa inay talaabo degdeg ah ay qaadi doonaan oo muwaadiniintan Soomaaliyeed xuquuqdooda si degdeg ah loo celiyo waan runtii wadanka iyadoo dowladda jirto aan maqalno boob iyo dhacna nasiib daro marka foolxumay ku tahay dowladnimada foolxumay ay ku tahay nidaamka geedi socodka lagu raadinayo Soomaali oo nabad ah
oo shaqaynayso arrintan oo kale waxay ku tahay fool xumo marka waxaan rajaynaynaa in arrintan laga gudbo dhammaan daawadayaasha barnaamijkan ka qayb qaatay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin ditore adigana fursadda aadna siisay kaaga mahad celinaynaa insha allah waxaanu ku rajaynaynaa inaad ka guulaysan doonto arrintan insha allah وما سنتين فانت مركلاه وحكرجين إنه مقرد إنه محل هاي أو حق نتوسيو إنه حق درجة الدسكيل عليه إنه نقول إن شاء الله سوء عشانه فانت ذكر دقيقة سنة برنامج كانوا برنامج أدو في عنا وبعد ما جعلنا رنانتي أنا يقول عليه جام دقيقة سنة يعني سيجع نوسي سنة فانت مركا شكرا جزاكم الله خير barnaamijkan insha Allah barnaamijka xig waxaan rajaynaynaa haddaad tihiin familka ama qoyska reer Caamir Tarmuum barnaamijkan barnaamijka xig inuu noqon doono biidnillah idinkoo gurigiina helay oo gurigiina dib gacantiin ugu soo noqdo oo faraxsan ayaan insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ka baryaynaa oo shacabka Soomaaliyeed meel walba uu joogana uu ku farxi doono annagana guul ay noqon doonto dhammaan inta samaha jecelba marka insha Allah ta'ala Cabdiqaadir Zayn adan ka codsanaa barnaamijna noo soo gabagabayso insha Allah dhammaan waxaan idin leeyahay nabadgelyo amaana Allah wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh